بسم الله ما صنتهاي دقنة runtii hadee aad iyo aad aan usoo dhaweynaa warsaxaafada soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka runtii wuxuuna ahaa mid la wada sugayay sida uu nooca warqadiisa ku cadna wuxuu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka mooshinkii sharci darrada ahaa ee laga keenay madaxweynaha inuu si rasmi ah u buray asagu faahfaahiyay iyo qodobada soo rabo usii taxliiliyo laakiin hadee waxaa muhiimadu ay tahay dee sida ogtahay in anagu aan arrintaasi hadee maalmihii dambe ay noqotay mid siyaasadda Soomaaliya cakirta gaar ahaana howlihii dawladana iska hor keentay si rasmi ahna dee anagu horaan uga hadalna u sheegnay in moosinku uu sharci darro ah oo sharciga waafaqsaneyn u yahay oo qodobadii sida dastuuriga ah laga rabayna waxyaabaha lagu soo eedeeyay madaxweynaha ay ahaayeen hadee waxyaalo mataqaana asal iyo baar aan lahayn oo macnaha xaqiiq aan ahayn midda kale markii madaxweynaha laga soo gudbinayo impeachmentiga waxaa looga soo gudbin karaa madaxweynaha qaadista madaxweynaha qodobada sida inuu madaxweynuhu si bareer ah ugu tuntay qodobo dastuuri ah oo ku jira dastuurka Soomaaliya inuu jabshay oo si bareer u jabshay iyo inuu madaxweynuhu khiyaano qaran galay labadaas qodob kaliya looga keeni karaa madaxweynaha sida mooshinka taas marka waxay ku cadeynaysaa inaysan ahayn mid jirtay laakiin ay ahayd arrin siyaasadeed sheegnana inaan wax la isku haystay sharci aysan ahayn ay ahayn arrimo siyaasadeed ilaahay mahadiis waxa hadii arrintaas waxay ahayd arrin oo sida inta anagu aan kala socono arrin shirqool ah oo saddex geesood ah oo weerar wuxuu ahaa dalkan lagu soo qaaday runtii marka aan saas aan leeyahay saddex geesood waxaan ula jeedaa dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad aan adigu waxun iska dacaas ka dhigaysa siyaasadda sida iska taa laakiin aan si dabagelin waxa si rasmi ah u jiraan marka wuxuu ahaa weerar saddex geesood ah oo dawlado caalami ah oo laba dawladood oo waaweyn ka qayb qaadanaysay iyo koox Soomaali ah weerar noocaas ahaa oo shirqoolka ugu dambeeyay oo dawladda lagu soo qaaday ilaahay maadiista shacabka Soomaaliyeed iyo isku duubni muujiyay iyo dawladooda way ka badbaadeen waxaan sidoo kale marka u mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka garashada uu waqtigan uu gartay ummadda Soomaaliyeed inay hal meel u jeedo aadan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ma taqaana wajahan qaada shacabka Soomaaliyeed waan soo dhaweynaa arrintaas runtii mooshinka sharci darrada ah ee ulba la keenay laakiin buray hadda waa gartay markaad eegto raggii xildhibaanada ahaa ee barnaamijkan soo abaabulay iyaga laftooda dabcan maadaama mooshinka uu sifihii uu sax ku noqon lahaa uu baal maray guddoonkuna cadeeyay inuu sharci darro yahay bayaan cadna ay soo saareen madaxda kala duwan ee golaha shacabka maxaa la gudboon hadda iyaga mudanayaal weeye golaha ku jira maxaad iyaga laftooda aad gaarsiinaysaa horta saashito waa macsan tahay degane waa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka runtii si kastaba ha iska ahaato laakiin waxaa loo rabaa qofku sidooda inuu macnaha xildhibaanimada micnaheeda in dadku ay fahamsan yihiin al rabaa waxaa muhiim ah oon aad iyo aad u bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeedna ugu bishaareynaya sarreynta sharciga inay soo laabato xilligii sarreynta sharciga lagu shaqeyn lahaa inay maanta Soomaaliya ay istaagtay waxaan la rabaa dadka Soomaaliyeed shacabka marka aan la wadaago dadka Soomaaliyeed waa dad inta badan wax dhageysta laakiin aan waxyaabaha la isku hayay midna aan akhrin waxa marka fiicnaaleed qof kasta oo Soomaaliya dastuurka Soomaaliya waa waajib inuu haysto oo gurigiisa u yaalo uu akhristo uu markastana oo dalka uu marxaladda noocan oo kale uu galo inuu kala fahmo waxa sharciga ah iyo waxa siyaasadda ah oo aan la soo hoosgelin qof kasta oo Soomaaliya inuu markii wax la akhriyo inuu fiiriyo oo dastuurkiisa la soo baxo qodobka markaas la isku haysto uu fiirsho akhristo waxa meesha saxda ah uu ka aado horta ummadda Soomaaliyeed taas aan ugu baaqi lahay kan kale xildhibaanada waxaan leeyahay horta waxa la xildhibaanka micnihiisa isagu waxay tahay oo xildhibaankan marka la soo dooranayo wuxuu xildhibaan ku yahay inuu matalaada dadkiisa iyo shacabka Soomaaliyeed inuu ugu adeego oo sida saxda ugu adeego ayaa loo sameeyay ma ahan sida loo bartay oo qofka xildhibaanada oo dantiisa gaarka uu ku fiirsanayo xilligeedii ay soo dhamaataan aniga aan u arkaa marka xildhibaanadaas waxaan dhihi ayagoo mahadsan inay usturaan dalkooda iyo dadkooda ay kana waantoobaan arrimahan sida gaarka ah markasta loo raadinayo oo danahan gaarka leh oo dadka lagu dhibaateynayo arrintaas marka waxaa fiicnaanayd in ilaahayna uga baqaan oo waxa weeyaan maanta qofku waa nooy birin waa dhimanaya marka in arrintaas ilaahay u cabsadaan dalkan iyo dadkan ay u dhaafteen u turaan sida saxda ah oo sharcigu waafaq qabana ugu shaqeeyaan cadaaladana ma taqaana dalkan ay
intaas maanta waxaad ogtahay soomaaliya marxaladda ay ku jirto waxaa cidda ugu ballaaran wax laga sugayaa baarlamaanka soomaaliya marka ayaga waajibkoodaas inay gutaan anigaan u baaqi lahay oo si sharci ah ay u gutaan cadaalad ah kana waantoomaan arrimaha gaarka ah runtii waxaa rabaa qofku inuu ogaado inuu wixii uu soo maray wax badan ka barto waxaa ku quustaanaan leeyahay maanta shacabka soomaaliya waa soo jeesteen way difaacayaan dawladooda wayna xilligii la qaldi jireen way kasoo gudbeen sharciga iyo sharci darradana way kala yaqaanaan maanta awoodda marka laga hadlaayana awoodda lagu sheega waa shacabkiina way soo jeedaan madaxna way garab taagayihiin runtii marka waxaa aad iyo aad ugu faraxsana inay shacabka soomaaliyeed ay muujiyeen awoodoodii oo shay u shaqay lahayd iyo sarreynta sharciga siday u hirgeli lahayn inay usoo jeesteen sidaasaan mataqaanaa aan xildhibaanadan dhihi lahaa inay marka dalka iyo dadka u turaanoo ay cadaalad ula shaqeeyaan madaxda sidaasaan usoo jeedi lahaa ayagana runtii aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinaha mar kaleeto guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan guddoonka oo isku duuban waxaan leeyahay si wanaagsan hawshiina u wata shacabka soomaaliyeed dhammaantoodna aad iyo aad usoo dhaweynaya arrintan marka intaasaan runtii arrintaas sidaasaan u arkaa walaal